aniga bisha ramadaanka markii soo gaaro waxa dareemaa farxad waxay ii tahay bil caafimaad waxay ii tahay bil cibaado bilaha kaleento inta quraanka akhriyo way ka badan tahay bishaan waxa laga yaabaa quraanka in ay ugu yaraan 15 mar dejiyo 14 mar hadee fikirkayga ka dhigto inay bishaan ramadaan bil nabadeed tahay door weyn ay ka ciyaartaa diinta islaamka inay nabdeynta ka shaqeyso waayo diinta islaamka magaceedu waa islaam waxaan ka rajeynayaa wadankeena in nabadgelyadaas helno anagana wax yar oo waxaysan tashwiishan lagu furan insha Allah waan rajeynaynaa inuu nabad helno وعلى